maareeyaha wakaalada biyaha magaalada Hargeysa Maxamed Cali Axmed Daarood ayaa waxa uu ka warbixiyay mishiin cusub oo loo soo iibiyay xarumaha wax soo saarka biyaha ee Geedeble kaasi oo noqonaya mishiinkii afraad yeelato wakaalada biyaha magaalada Hargeysa iyadoo laga qayb qaadanayo dardargelinta iyo ballaarinta mashaariicda kala duwan ee biyaha ballaarinta caasimadda Hargeysa. Maxamed Cali Axmed Daarood maareeyaha wakaalada biyaha magaalada Hargeysa warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka warbixiyay mishiinkan iyo waxa uu qaban doono. maanta sida halkan ka arkaysan qolada warbaahintu goobjoogaha ayaa waxaan kusoo bandhigaynay mishiin loo iibiyay xarumaha biyo soo saarka ee Geedeble. mishiinka noociisu yahay Bearkaniska nooca loo yaqaano awoodiisuna tahay 550 kVA 550 kVA. mishiinkan noqonaya mishiinkii afraad ee wakaalada kusoo biira 20 bilood la soo dhaafay amba ilaa sanadkii hore iyo sanadkan gudihiisa. wakaalada biyaha Hargeysa oo ognahay meel 24 saac shaqeysa ay sababtuna keentay biilaanta amba biyaha yar aan ku filayn caasimadda. mishiinadii loogu talagalay inay shaqeeyaan 8 saacadood amba shifts 8 saacadood inta kalena ay nastaan baa shaqeynaya maxaa 23 saacadood ku dhawaad. taas waxay keentaa mishiinada aan ku shaqeynayno hore cimrigoodu soo gaabto markasta mishiino cusub lala daba taagnaado si aan marnaba hakad ugu iman shaqada socota. waxaan jecelahay runtii inaan halkan uga mahadnaqo Maxamed Ibrahim Ismaaciil oo loo yaqaan Maxamed Dable oo ah ganacsade runtii wakaalada biyaha Hargeysa la soo shaqeynay muddo dheer aan oran karo sidii wadanka loogu soo laabtayba oo gaar ahaan xagga mishiinada keenidooda nooca ugu wanaagsan markasta xil iska saara soo runtii aad baan ugu macalinayo kan noo keenay mishiinada hore sanadkii hore aan gudbinayna la geeyay xarumaha biyo soo saarka noo keenay. wakaaladu markastaba waa inay samaysaa maalgashi joogto ah waa meel kharashkeedu badan yahay shaqadeeduna badan tahay marka mishiinadeeda iyo baabkeeda markastaba uu ku imanayo maxaan ilaadaa damage degdegi uu ku imaado iyadoo keenayso shaqada badan ee ka socota. waxaanu ilaahay ka rajeynaynaa hawlaha socda ee ay ku hawleeyihiin hay'adaha caalamiga in la shaqeeya fidinta biyaha Hargeysa in dhamaantood si guul ah ugu dhamaadaan insha Allah. waqtigoodana way qaadanayaan laakiin runtii oo shaqo rajo wanaagsan la sidana u socota. aan ku rajaynahay runtii inay mid kastaaba xilligeeda ku dhamaato haddii Ilaahay yiraahdo. runtii wakaalada biyuhu waxa keena markastaba يعني waa meel ku xidhan isbedelka kharashaadka joogtada haday noqoto dollarku markasta isbedelo saameyn joogta ku leeyahay isbedelka ku imanaya shidaalka qiimaha shidaalku markastaba uu ku leeyahay saameyn. waa laba shay baa shaqada lafdhabar midna waa shidaalka midna waxa weeyaan waa dollarkii oo dollar bay wax ku iibsanaysaa mishiinadii spare park mishiinada saliidii mishiinada shidaalkii. waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shaqaaleynaha wakaalada biyaha Hargeysa dhamaantood oo yani dadka sustain gareeya amba markasta wada hore u sii mariya shaqada wakaalada kala duwan runtii laantoodna aanay hawlahan badan ee socdaan hirgalaan. mid labaad waxaan u mahadnaqayaa shacabweynaha reer Hargeysa runtii inta biyaha naga hesha iyo inta aan naga helin be samirka iyo hawsha garab taagan waad mahadsantiin. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.